waxanahay wahdiga dugsiga labada kun iyo labaatanka maalintuna ay tahay maalin salaasa fasalka waa fasalka saddexaad waxaanu bilownay cutubkeedii saddexaad ee maadada Soomaaliga fasalka saddexaad cutubka saddexaad wuxuu ka sheekeynay wax loo yaqaan googaaleysi iyo maxay carab jalqin googaaleysi carab jalqin wuxuu ka hadlayaa labada isku jira oo inta hore soo qaadana waa googaaleysi inta labaadna waa maxay waa carab jalqin cutubka saddexaad intaas uu ka warramaya googaaleysiga iyo carab jalqin haddaynu bilowno waa maxay googaaleysiga marka koobaad googaaleysiga ardaydu ka hadli doonaa laba kelmadood waa laba kelmadood oo inagu cusub googaaleysiga iyo carab jalqintu waa laba kelmadood oo inagu cusub oo aynu ku baran doono fasalka saddexaad maadada Soomaaliga waayo hadaba arday marka koobaad aynu baran wax loo yaqaan googaaleysiga oo googaaleysiga la isweydiinayna googaaleysigu waa weydiimo dhaqameed oo waa maxay googaaleysigu ardaydu waxa oranaysaa waa weydiimo dhaqameed weeyaan ay carruurtu isku maaweelin jireen weydiimo dhaqameed oo hore u soo jiri jireen oo ay isku maaweelin jireen carruurtu oo carruurta isku maaweelin jiray weydiimo dhaqameed buu ahaa beriyo hore waa waxaanu dhaqan u lahayn oo aynu ka dhaxalay dadkii naga horreeyay ama waalidkeennii naga horreeyay ka dhaxalay markaa googaaleysigu waa weydiimo dhaqameed soo jireen ah dhaqameed waxaan taqaanaa waxaanu dhaqan u leenahay oo beriyo hore soo jiri jiray waa weydiimo dhaqameed ay carruurtu isku maaweelin jireen carruurta isku maaweelin jiray oo maaweelin maxaa looga jeedaa waqtigaas ku dhaafinaysa oo waqtigu tusaalahaan carruurta marka ay hawl hayaan amaba ay xoolaha eegayaan ayay googa ka mid baa oran jiray googa midka kale wuxuu oran jiray cigale markaa saas ah inta ay xoolaha laga maalayo calashaan carruurtu inta xoolaha laga maalayo oo dhaqanka Soomaalida markaynu eegano ama markaynu baranano oo markaynu fiirinano waxaanu dhaqan u lahayn carruurtu inta xoolaha laga maalayo ama carruurta cuntada loo karinayo si ay u seexan waalidkood ama hooyooyinkood iyo aabahood waxay uga sheekeyn jireen googaaleysigu xiiso u lahaa markuu xiiso u yeesho ayay isweydiin jireen oo googaaciga la isku oran jireen waa googaaleysigu markaynu eegano haddaba waxa isku maaweelin jiray carruurta isku maaweelin jiray waqtiga isku dhaafi jireen inta xoolaha laga maalayo xoolaha inta la lisayana carruurta ayaa isku maaweelin jiray inta caanaha laga maalayo xoolaha inta caanaha laga maalayo waxa kale oo ku jiray googaaleysiga waxa kale kaliya kama ahayn inta carruurta caanaha loo soo lisayo ee fahan kale meesha ku jiray qoto kale meesha ku jirtay oo fahano tamba ka fiicnay waxa la yiri waxa kale oo ku jiray googaaleysiga fahanka waxa la yiri fahanka calashaan fahanka waa garashada fahanka carruurta oo lagu kobciyo fahanka carruurtana waa lagu kobcin jiray kaliya qodobka koowaad wuxuu sheegayaa googaaleysigu waa weydiimo dhaqameed ay carruurtu isku maaweelin jireen inta xoolaha laga maalayo qodobkan haddaba kalena uu ka duwan yahay oo wuxuu ka oranayaa sidoo kale googaaleysiga waxa kale oo ku jiray googaaleysiga fahanka carruurta oo lagu kobciyo oo carruurta fahankoodii ayaa adkaanaya markuu deeda fahankii marka kolbe la weydiiyo dhowr su'aalood oo carabkoodii baa adkaanaya fahankiina uu ballaaranaya maskaxdiina way garanayaan oo waxay noqonayaan dad dhaqanka iyo suugaantiiba bartay noqonayaan oo marka la weydiiyo hal xidhaalayaa wuu fikirayaa markuu fikirana maskaxda adkaanaysa markay maskaxdu way ballaaranaysaa markaa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii ama suugaantii Soomaaliga uu si fiican u farabarto ardayga oo faahfaahsan way googaaleysigu waxa kale oo ku jiray googaaleysiga fahanka carruurta ayuu kobciyaa kor buu u qaadaa oo carruurtu wuxuu noqonayaa qof maskax ballaaran oo dhaqankii iyo soo jireenka ha garanayo noqonaya waxa la carruurtu googaaleysiga waxay isku weydiin jireen laba hab oo googaaleysigu laba u ahaa midna googa u oran jiray midna ciga u oran jiray haynu eegno baadaba labada hab maxaa kala kuwaas oo kala labada hab ee carruurta ay googaaleysiga isku weydiin jireen waxa ku googaaleysigu waxa carruurtu isku weydiin jireen laba hab isku weydiin jireen labada hab kuwaas oo kala koow habka koobaad waa maxay waa googa kelmadda googa macnaheedu way nagu cusub tahay halkaan ku sheegi doonaa googa ardayga googa waxay nooga jeedaa waa su'aal ama iga garo oo qof hadduu ku yiraahdo googa labadii uu uga jeedaa waa su'aal oo wax uu weydiinayaa ama iga garo kuleey waa car iga garo googa waa inta koobaad aynu soo qaadanay waa labadii hab ee carruurta isku weydiin jireen labadii hab ee googaaleysigu carruurta isku weydiin jireen waxay kala ahaayeen laba hab kuwaas oo kala habka loo yaqaano googa macnaheedu waa maxay googa waa su'aal ama iga garo waa su'aalaysaa ama waad iga garanaysaa waa iga garo qofka
jawaabay ka googa yirina muxuu uga jeedaa ka googa yiri waa kii su'aasha weydiiyay ka ciga la yirina waa maxay waa kii jawaabta keenay waa soo kale oo googa macnaheedu waa su'aal ama iga garo waa su'aal ama iga garo ciga lana waa maxay waa jawaab waa maxay waa jawaab arday maanta waxaad baratay in googaalisiga laba hab la isku weydiiyo habka koowaad waa googa macnaheedu waa su'aal ama iga garo habka labaadna waa maxay habka labaad waa maxay waa ciga leh oo ciga leh hadaan maanta in badan ciga ma jirtay maanta hadda jawaab ay taagan tahay markaan Soomaaliya ka sheekeynaa haddaba ardaydu soo qaadan tusaaleena koowaad waa kalimaadkii koowaad waa tusaale maxay kani waa xabadii koowaad baynu soo qaadanay oo xabada koowaad taasina soo qaadanay googa la soo qaaday waxaan googaalis leeyahay waxaan soo qaadano oo waa googa waxa la su'aal baa la weydiiyay oo googa ma hadlayo uu ina weydiiyay waa qofkii koowaad uu taagan tahay qofka koowaad googa waa maxay waa su'aal waa kii su'aasha weydiinayay ama iga gara kooranay weeyaan oo googa waa kii wax weydiiyay ciga lana waa maxay waa kii ka jawaabay su'aasha wax weydiiyay iyo kala weydiiyay googa waa kii wax weydiiyay ciga lana waa maxay kii la weydiiyay weeyaan waxa la weydiiyay googaalisteena koowaad inagoo soo qaadan xabada koowaad oo googa iyo iga garadiya waxa la weydiiyay sac madow oo seere ku jira in kama naqaano sac madow oo seere ku jira waxa la weydiiyay sac madow oo ku jira maxay waxa la weydiiyay sac madow oo ku jira seero badanka waxa Soomaaliya loo yaqaan waa meesha dooga fara badan leh ee aan soo dhaxkilo seero la ilaaliyo laga Soomaaliya afkeena sac madow oo seero ku jira aduu tusaalaha dadka sac madow wax kala u taqaana oo waxa iska oran kartaa sac madow doon ku jira badanka iska oranaysa laakiin muhiimada iyo qotada ku jirta way ka dheertahay kan iyo fahamka ku jira sida islaama sida uu fahamtay ma oo Soomaaliya waxay tiraahdaa hada nasi u yiri nasi u qaaday adinka sida uu wada garanaa بعض الدراسات سعنا لو كنت ناس سيراني واي تسالين لما waxa la weydiiyay xarada yada waa qaatama caashan xarada lagu xirado waa meesha xoolaha ay ku xareysanayaan xarada yadu waa qaatama xarada yadu ulna ka buuxda iyo maamul ku moodaysan marka masaxadeedii waxa oranaysa waxa xarada yadu waa qaatama caashan xarada yada xoolaha ku xareysana xero hadii la weydiiyo xero waa meesha lagu xareeyo xoolaha la yiraahdo waa qaatama caashan ulba ka buuxda way tusaalaha saddexaad xarada yadu waa wadagodo god la galo xarada yadu wadagod weeyaan waa wadagodo hadana godka god la galo ma lagu baxsado ma lagu dhunto tusaalaha afraad meesha martaba muuqaaga lawaa inta dad badan baa habar mooday oo la tiro macalinku ku yaraa ka ku baxsado wuxuu noo habaaraya inay habaar maaha marka uu habaar badan ka saylay laakiin ka qaar loo fahman ka saylay meesha martaba muuqaaga lawaa عشان يلا واركبه وصوت ما تقرأ معكم صديقته صوتنا هباري ما ماشي هذا طبعا مو قالوا مركا هباري كلمة إنك واحد مقصد الأرض وجالس من مقصد أكتر من مقصد ماشي هذا مرتبة علشان مركا مرتبة مو قالوا علشان يلا هو أركبه أو مركا هبار قارب هبار نوري وين السنارة بدنا بير ولا نطير سجنه واحد اللي باكل أو كلها اللي باكل كلها أيوم هذا كسول اليوم كلها اللي باكل هذا كلها ويخلي يرى عروض مركي تام قشوا لكن بقول فلسطين وايد وراء عروض المسؤول هذا اللي ميكري جوجاليس كمان كبار ريا لو قال لي بقى كله كله واحد ريا إنه كواريا عقل كبير يا عقل كبير مركو عقل كبير هذا اللي بقى كله واحد ريا أنت سوق قاعدين نكتب كله في السبب أو تعيدوا عائلة يصيروا جوجاليس كويسين ما هذا بعد ده من عجلة عجلين ولا ما هذا بعد سوق قاعدين تكتبوا ما حد لو قلت يا sac ku jira sac madow oo ku jira seero maxaa looga jeedaa baadada waxa looga jeedaa bal sac madow waa su'aalaha tan waa maxay waa su'aasha tan waa maxay waa jawaabta sabab sac madow oo seero ku jira maxaa looga jeedaa xaga ciga laha waa googaalay soma xaga ciga laha maxaa looga jeedaa waxa sac madow seero ku jira waxa looga jeedaa sac madow seero ku jira waxa looga jeedaa waa injirta ku dhalata madaxa dadka waxa looga jeedaa waa injirta ku dhalata madaxa dadka oo injirtu waa maxay waa dulin ku dhasha madaxa dadku ku dhasha oo markay dadku sagaajin waayaan ama ay dheeran waayaan ama ay nadaafadii ilaalin waayaan ayay ku dhalata oo maanta hadii uu sac madow seero ku jira waxa garatay waa injirta ku dhalata madaxa oranaysa dad googaaleysiga taqaano hadii kale waxa oranaysa waa sax meel daaqeed soo dhashay waxa dana gariida marka teeri daween sac madow seero ku jira waxa looga jeedaa waa injirta ku dhalata madaxa dadka injirtaas waxa ku dhalata markuu qof sagaajin waayo uu feeran waayo uu meeran waayo uu saliidaysan waayo waa injirta ku dhalata madaxa dadka kale hadaa buuqasho su'aasha weydiin
كل بدل طلبات سوق قالوا حرام يدو ولا قاتم حرام يدني أي ما قال هيو أنا ولا قاتم ما بلا هذا ويتوقع تقيقوا محن قاصا يسأل هي وحلو كتير هذا يقول حرام يدو ولا قاتم ما لها وحلو كتير وجيسابيا إنك بس قال هديها محمد يرهدو تقول سو حافظ شهر كسوري أو كلام محمد ما تقولها ما كاتيجا لتري وسؤال شو بقول أو خيرنا وهي محمد حريض ولا قاتمله يعني أنا قريب واحد ونص حريض ولا يعني لكن هذا غير قريب في صوماليا أنت لا تقول جواب بس كل يكسر قريب كل يكسر قريب أنت لا تقول صار نص أروح جيسه رياض نص ومحله أنت جيس ريو حاليا جيسه عليه ما كسبه بسؤال واحد مودا أولاد مودا لكن هذا كل ده يجتمع على الصور الرجل ديارية تبيني ما توصل أروشنا كيمنا توصل كتير جيس رياض وحنا لو قاتمنا وحلو كذا وجيسانيا لو كذا جيسانا دليلها سو تصدقنا كسروا حنا يلو ودقدو قد لجامع حنا يلو ودقدو قد لجامع هم حلو كذا بس شوي حاجة إذا الله سؤال سبحان الله سؤال سبحان الله ومريكا ما قش روح ومريك عند ما ما قش روح ومريك رو واحد قسم يا محي بعد قسم يا واحد يلا صو ومريك ما كان مريك سلوك كذا حلو وقدو قد لجامع ومريك أصلا وقاب سنة مريك حطاني على وقاب سنة ما قش روح بقى كده سنة مريك واحد ما كان وقدو قد لجامع هذا عشان كده وقدو قد نما مريك واساسه ما قش روح وقاب واساسه مريك ما كان ما قش روح هذا حبيب الروح هذا كان حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا كان لكن ما كنت بدو سما الحمد لله صار صايو هم كرنسه ولا حد يجي والله كده حمضه إني شال الجود كله واي حلو وقدو لما لو حلو كذا ومريك واحد والله روح ما قش واي تصال عفان حلو ودي حاجة عيالها وحلو ودي ماشي مرتبة مو قالوا وحبتي هبارك هو وطنا ضرير فان ماشي مرتبة مو قالوا وحلو كذا ونهاك علشان هيك وعدتها ما كان ماشي مرتبة لنهاك أما عدتها أو كده بدأ فوق بقى كده بدأ هذا محمد أو صاحبي أو مالير قلي أو واحد حافظة شارك السوق عطي أيوم ما بلين وحلو أو علاقة كنت عليها قاتل هي واحد قاتل محمد يرى روب وين بقى بسودوك عاوي روب كمان كل ماشي وداي جوال جواي كي وحلا لواي أنا واضح سطحي مرة روب كمان كاكو عاوي وحلا ماشي ما تما مو قالوا وحلا وقت كذا نهاية كاجا أو كاجا ده بدأ نهاية كاجا بقى كونكو قريبا روب كذا واحد صاحبي أي روب قريبا واضح سطحي بقى أما عدوا بكورين إيه بقى لأن سيد الجوري الجوري هالكانوا مرة ووقت عمود الصومال ده كنا كنا كبرنا جدا شيء عمود بس سوق ده هالكانوا مرة ساعتهم مرة سالوا بقى لوجه ما كان رأي كذا لوجه أطول كده لكن ما كلامي ماشي أما كنا مو قوي لو واحد لوجه ده وين كذا أورو كذا بدأ روك شو ما كذا بدأ وقتلي وتصالح عشان واحد اللي بيحكم أو كلابا اللي أنتوا اللي بيحضروا عني أيوه هذانا كلابا لقي ما كان محمد كان أنت كتير هذا هو عملنا لكن ما أنت يربطه أو قصتنا واحد لو جت هذا اللي بيحكمنا كلنا بس واحد لو جت هذا ومحي واحد لو جت هذا وعقلها واحد لو جت هذا وعقلها من كأدش من أتصل وعقل من كتخبط كشيء عقل كذا صار واحد شيء هذا محمد يروي وأتصل بعد عقلك ما كسر اللي بيحكم تاني عقلك ولما عقل جالس عقل ولا بوقري ولا مضحيين ولا بوقري اللي بيحكمنا كل بلد بالين ما كان هواي ما كان يتعقل ويرا عروق ما كان يتعقل وأنا بقول اللي بيحكمنا كل بلد هواي وحنا الله سبب لي جاية أنت صوت شربان قال أنت صوت شربان وقصة بحال اللي بيحكمنا كل بلد بحال وجه وعقل كمان هذا مرنا لقصة بحال وجه ما كان يوقف راسه والموسي سقطنا لكن وعن فوق هذا حاجة نشوف بالسقط هذا حاجة نشوف شنطة نوع محي وجوجاليس يسوي قناة أمام محي أمسوا بيدي حاجة شنطة نوع محي وعيجاليس وعيجالي أما هو محي وشواب هذا مستني سقط راسي إنه ما أشكره كوارث يا جوجاليس اللي يعرف تقيل وأنا تقال عبده كلمته كبار كمان سووا جوجاليس فامي وويدي ما نكمل هذا عروض سكول دينش ده ما يسكول ما ولينشين وحل ماتي حل حوالها ولا سعر تسكول ما ولينشين أو سكول لبا سواء كلا عروض واحد كل أتكلم محي واحد فاهم كل ده يلا أتكلم جوجاليس وعروض سكول ديان وما هنشي عبده ولا هم وهنشي لما سكول دينش هو سواء كلا عبده جوجاليس واحد بيتشيل عبده وسؤال لما هي كجرو هذا أنا عبده وعيال عبده واحد بيتشيل وشواب وسؤال شو كلام هذا
ساعة مدروس هنا كتير ما أنت وقت كده وقت أنت معلم رواية جت من حكوا لا وقت كده حرارة ولا قاتمة وجيسها مليا حرارة يدو وولدوا بالله ولا ماذا وأمريكا يقولون سمعني مقدر كلام صادق وين ماشي ما تكون مقالبة وين تكون ركض بدأ يقولون سنقول يفهم سمعني وين سؤال شنا اللي بيحكمنا كل بلد واحد قلنا صادق مع اللي بيحكي معنا كل بيوم مرة قلا مرة وانتصر بحنا كائنا عشان كتوبة بيت كاتيل سبوا معي وأبوك تابعة ما تدرس الصومالية وأبوك معي وقال أفراد ومع المقرن شعي وإذا لا ما يوم أدنى الصومالية وإذا لا كل أنت تنبه والسلام عليكم متى نقول كل مدرنا حساب أيوة حساب ومع المقرن وإذا لا فرحشة ورينا فردية